Magacaygu waa Faadumo Aweys Cusmaan. Waxaan ahay farshaxaniste. Waxaan sameeyaa sawir gacmeedyada nooc walba ay yihiin. Challenge-ga oo 99 maalmood 99 sawir dhowr artist ahayn. Marka midaan noo bilaabay artistayaasha oo asxaabta aan nahay ka mid ah wuuna xujaystay in maalin walbo ilaa muddo 99 beri ah la sameeyo sawir. Halkan waxaan ku hayaa sawiradii challenge-ga aniga aan u sameeyay intooda ugu badan intaan aan hadda buug la ekaadeen. Waxaa ka mid ah sawirkan oo kale. Sawirkan sawirka ugu horeeyay aan sameeyay waa daywan. Sawirada intooda kalena waa idin sharxi doonaa. Sawirkan ujeedka aniga aan ka lahaa ayaa waxaa ah waxaan isku daray fetal rate-ka oo wadnaha qofka laga fiiriyo inuu shaqeynayo, qaabka u socdo, qofka inuu nool yahay, inuu dhintay. Waxaan usoo qaatay buug iyo asiga ayaa isdhexgeliyay. Marka taas aniga ujeedkayga wuxuu ahaa in qofka markuu wax akhrinayo siba nolol yani waxay la mid tahay inuu hal nolol ka badan uu nool yahay oo kale. Wax badan uu ogaanaa, aqoontiisa badanay, ogaanshihiisa badanayo, qof indho furan uu noqonaa, maskax furan. Dadka kale uu ka duwan yahay, sibuu ugu nolol badan yahay. Sawirada horta way kala saameyn badnaayeen. Waxaa ka mid ah sawirkan oo kale. Sawirkan wuxuu ka hadlaa taleefanada xilligan hadda la joogo sida nolosheena aad ugu xirnaatay. Yani qofka daqiiqad xataa yani ma fadhi karo, meel ma fadhi karo asoo waxba sameynaynin inuu taleefan la'aan ahaado. Wuxuu ka fikiraa inuu taleefan helo oo uu isticmaalo. Marka taleefanku si uu qofku u xirxiray waxna uu u fududeeyay, laakiin isla markii haddana qofka bini'aadanka wuxuu noqday yani qof mar walba ku tiirsan taleefanada ama teknolojiyada. Sawirka aan ka sameeyay Elman wuxuu ka mid yahay sawirada aniga aan ugu jeclahay inta aan challenge-gan ka sameeyay. Sababta oo igu dhalisay inaan go'aansado inaan sawiro asiga ayaa waxay ahayd runtii qof kaalin weyn bulshada Soomaaliya u jooga ayuu ahaa. Wax aad u wanaagsan ayuu xilligiisa u qabtay bulshada Soomaaliyeed. Sidaas ay tahayna dhanka artiska markii la fiiriyo ma helaysid sawir gacmeedyo asiga loo sameeyay. Marka si oo asigana xasuustiisa u nooleeyo, waxqabadkiisa iyo wax walba loo xasuusto ayaa u sawiray sawirkaas. Maalmaha qofka isku mid uma ahan. Qofka weliba markuu shaqaynayo mararka qaar waxaan is arki jiray anigoo barnaamij ku dhex jiro ama hool aan hayo inaan meeshii aan joogo inaan sawir ku muujsiyo sawirkii marka aan soo dhigo. Caqabadahaas waay adiga caqabadaha aniga isoo mari jireen.